madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu khudbad sanadeedkii ka horjeediyay fadhi ay isugu yimaadeen golayaasha guurtada iyo wakiilada. Ugu horeyn madaxweynaha Somaliland waxa uu khudbadaasi kaga hadlay kulankii Itoobiya uu kula qaatay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo raaligelinta uu ka bixiyay madaxweynaha Soomaaliya xasuuqii ka dhacay Somaliland 1988. halka laba waxaan muddo yar baan joognay wixii lagu hadlay uu ahaa Prime Minister Abiy wuxuu yiri waxaan doonayaa oo diyaar u ahaan soo diyaar garoon soo xarkaxay inaan dhex galo dhibaatada dhex taala Soomaaliya iyo Somaliland way raagtay waa arrin Afrika u taala waa arrin geeska Afrika u taala marka arrinta waa galaya Somaliland diyaar nahay waan aqbalay inuu arrinteena soo dhex galo ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya halka wax ka badan Maxamed Cabdilaahi waa aqbalay inta wax ka badan oo barnaamij iyo ajende iyo faahfaahin mid laba gelin waxa dhacday arrin kulliba aan filayn dadka badankooduna aan filayn madaxweynaha Soomaaliya ee hadda jooga Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa wuxuu bixiyay raaligelin wixii xasuuqii ka dhacay Somaliland sanad qarnigii tagay dabayaaqadiisii oo dhan 8 kilo oran maayo 9 wuxuu ka soo bilaabay ilaa 60 maalintii inqilaabkii xasankeedii lagu jiray ninkii sarkaalka ahaa ina Cabdi raaligelintaasi waa ninkii u horreeyay Xasan Sheekh marbu si dulmara u yiri waan ka xunnahay wixii ka dhacay iyo dhibaatooyinkii dadka ku dhacay laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halka raaligelin baan ka bixinaynaa inuu madaxweynaha qaranka Soomaaliya ah waa arrin aad iyo aad anay kadsigu ahay marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga rabaa marka qodobka laga reebo raaligelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in talaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrinteena la soo dhaweeyo waana soo dhaweynaya dhanka kale waxa uu ka hadlay khilaafka komishanka cusub iyo doorashooyinka waqtigooda dhamaaday kuwa cusub ay magacawnay kuwa cusub waxay soo mareen jaranjaradii sharci cidii uu xeer ku siinayso xulaan baa soo xushay madaxweynaha la soo marinayay isna uu iskriin busaaro uu sii daayay baarlamaanka sii daayay maxkamadii waa dhaarisay haddana muranka ugu soo noqday kuwan hala kala diro yaa sharci loo kala diro ma hayo meel hala kala diro sharci waa murankii waa kii labadii sano hore ayaa inagu bilowday mar haddii ay xisbiyadii qaranku ku fashilmeen inay ka heshiiyaan arrinta commissionka oo ah war doorashaha inoo qabtay waxa quraya inoo furan doorasho gaari karnaa oo doorashadu waajib inagu tahay waa inaan xisbiyadii furnaa dad badan ayaa markay leedahay xisbiyada la furay in cabsi geliyo yiraahdaa warbuuq waa ka dhici waa la isku qabsan inta soo doorashada soo maray waynu u bisan lahay inaan xisbiga furano oo kii laga tira bataa kala u haneeyo oo kii la doortaa kala u haneeyo dhammaan dadkana waxaan codsanaya inaan sinad galiya hawsha u galo oo aynaan ku doqonino cabsida laynagu akhriyo aynaan qaadana aynu dimuqraadiyadda soo xishadano ugu dambeyntii madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu kaga hadlay imaanshaha Farmaajo ee Hargeysa waxaan u soo degayaa hadal haynta madaxweynaha Soomaaliya imanaya Somaliland Hargeysa imanaya horta waa hadal hayn laakiin hadal haynta waa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi talaabo wanaagsan uu qaaday markuu yiri raaligelin baan laakiin wuxuu ku jeeyay markuu yiri waan imanaya Hargeysa oo sideebuu ku imanaya la isku diinay sideebuu ku imanaya xeerarka caalamiga ah curfiga dawliga ah aqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dawladdiisii iyo dalkiisa oo ka madaxda yahay waxa soo dambiya garee ayaa dadku waxa u geystay waliba oranaya anigoo madaxweynaha gobolladii soo siyaarinaya soo ma hawaan imanaya macnu soo wada soo inta ma aha oo taan meenu aqbalaynaa maya
suurtagal maaha ma yeelayno suurtagalla ma aha waxaan ku tarin lahaa madaxweynaha Soomaaliya tallaabo cabal qaado raaligelin baad bixisay waxaan u qaadanay inaad nabad iyo caqli ay soo socoto laakiin ku ibsan mayno inay aflagayn oo ku siyaaranaya taasi waxay dhalinaysaa caro horle iyo colaad horle iyo cadaawada u baahnaan oo bilow markaan soo koobo hadal haynta leeyahay wuxuu imanayaa Soomaaliya imanayaa buuri madaxweynaha Muqdisho anu wax kale oo garagaran maaye aan ku cabiree gabayga faarax uu kala gooyin baa arinta ka jawaabaya faarax wuxuu yiri qosol beera foolal qayaxan qiilan garanayo boorana fi laga qafilay qabarna hoos yaalo doqon baa halkii lagu qatali qoorta soo dhigan mariga mid yalay qarshaa laygu qali doono Cabdiraxmaan Ibraahim dalka TV Hargeysa